halkan waa horyaalka shacabka YouTube kaniguna waa Abduqaadir Xasan Duuliye kusoo dhawaada mar kale is arag wanaagsan maanta waxaan idahayaa 8 qodob oo ay muhiim tahay in aad si ogaatid hadii aad hadda kadib aad doonaysid inaad Yurub timaadid ama aad hadda soo gashay oo aad ku cusub tahay haddaba 8 qodob waa ku muhiim way ku anfici doonaan waxaad ka nasiib badan tahay 5 sano ka hor qof wadanka ama qurbaha soo galay ama Yurub soo galay oo markaas 8 qodob asagoonan warbixin sax aan ka haynin ay la kulantay waxa laga yaabaa 8 su'aalood in la weydiiyo asagana uusan markaas ku baraarugsaneyn dad hore Yurub soo galay oo 8 ay saameyn weyn ku yeesheen ayaa jira saameyntaas ay xilligaas ku yeesheen ilaa iyo maanta ay daba socoto haddaba 8 qodob si aad u ogaatid markaan halkan soo gashidna aad adoo ka warhaya hadii lagu weydiiyo aad si fudud uga jawaabtid ayaan ku sii sheegi doonaa insha Allah hadii ay tahay markii kugu horeysay horyaalka shacabka YouTube aad soo booqatid qaybta guduuda ama casaanka inoo riix ee subscribe-ka hadii aad kamid ahayd asxaabtii hore ugu taxnaana waa kaga mahadcelinayaa sida sharafta leh aad muuqaaladeeda u daawatid waqtina aad ugu bixisid haddaba si aan u ogaado inaad ila socotid ha hilmaamin like sababtoo ah waxaan ogaanayaa saaxiibada ku taxan muuqaalada hore loo daawadana asxaab badan ayaa like ii siirtay waad ku maasantiin runtii dhiirigelintiina insha Allah muuqaalka ayaa sii qaada dhigi doona 8 qodob waxay ka anfici doontaa hadii aad qurbaha imaatid ama Yurub aad soo gashid in aad 8 qodob hadii sida ay yihiin aad u sii ogaatid ama aad maskaxda ku sii haysid waxyaabo badan oo caqabado ah oo aad la kulmahayd in ay ku fududaadaan ay ka saamaxaysaa 8 qodob teeda kale waa base-ka ugu koowaad ee markaasi kugu muhiimsan hadii aad qurbaha soo gashid waana su'aalaha ugu koowaad ee aad la kulmi doontid 8 qodob mid kamid ah hadii ay si ka noqoto ama ka qaldanto waxa laga yaabaa noloshaada inta ka dhimanna in uu qaladkaas ku daba socdo way adag tahay runtii si aad qaladkaasi aad uga soo kabatid ama ay kugu saxmo mar kale haddaba 8 qodob maskaxda ku hay si degan u daawo qodobka koowaad maskaxda walaal ku hay magacaaga sida saxda u qormaayo sababtoo ah dad badan ayaa magacooda sida saxda u qormaayo aanan ogeyn tusaalo kale markii Cabdi lagu yiraahdo kale ama tusaalo kale aniga magacayga Abduqaadir oo kale Cabdi dad ba markaan dhaho Abduqaadir oo kale waxay soo qorayaan oo kale /qaadir oo kale qoray marka te wadankeeni badana dadkeena malahan dukumeenti sax ah oo magacooda si sax ah ugu qoran yahay meel walba oo qofku tago ama hadii ay noqoto iskuul ama meel shaqadii uu tagayo qof walba magacaaga sidee la tahay ayuu u qorayaa laakiin wadamadan nidaamka iyo dawladaha ay ka jiraan sidaas ma ahan qofka magaciisa sidii loo qoray maalintu dhashay ayuu ebedkiis u qornaanaya marka waxna laga bedelayo waxna lagu darayo marka xarfaha iyo shaqalada sidoo magacaaga u qoran yahay waa ku muhiim maskaxda inaad ku haysid hadhow laakiin hadaad qaladid ama magacaaga in hadii lagu weydiiyo oo si uun iskaga qortid oo aad dhahdid kadib gadaal ayaan ka sixi doonaa ama gadaal hala iga saxo kale kadib hadaad dhahdid way adkaanaysaa runtii qodobka labaad waxa uu noqonayaa inta magacii aad qaadanaysid waa in aad si ogaataa tusaalo kale Abduqaadir Xasan ayaa la yiraahdaa haddaan Abduqaadir waa magacayga Xasanna waa aabahay haddaan magac saddexaad sii sheegto awowgay ah ama magac ku sii xigo kale aan sii sheegto kale oo abkoogay ah oo kale waan sameyn karaa laakiin aniga waxaan kugu talin lahaa waxay tahay in labadaada magacaaga ugu horeeya iyo magaca aabaha ee Abduqaadir Xasan sidaas oo kale ah aad qaadatid oo aad magac tira badan aad isku qaadan sababtoo ah birito waxa laga yaabaa xoogaa inuu carqalad kugu keeno ama magacaaga tira bato kale ama tusaale kale magacaaga waa magaca koowaad ee aad leedahay magaca labaad waa magaca familka kale ayay dadkan ay dhahaan magaca familka kale hadad laba qoratid oo kale magaca aabaha iyo magaca awowga aad qoratid oo kale badana meelaha shaqada iyo meelaha kala duwan ee aad tagtid oo kale way ku wareerayaan magac marka si ay kugu fududaato laba magac la qoro ayaan ku dhihi lahaa waa magacaaga iyo magaca aabaha laakiin
adaa ikhtiyaar u leh. qodobka saddexaad, da'da aad jirtid. fadlan sanadkaad jirtid, bishay ka tahay, maalintay ka tahay waa inaad ogaataa. maalintaa dhalatay, bishay ahayd, sanadka aad dhalatay waa inaad ogaataa. runtii sidaad ogsoon tihiin, annaga wadankeenii markii lagu yiraahdo hebelow goormee dhalatay ama heblaaya goormee dhalatay, waxaa la leeyahay aniga 1999 ayaan dhashay, 2000 ayaan dhashay, 1888 ayaan dhashay. marka wuxuu sheegtaa bas un sanadka, laakiin bilaha badana lama qoro. marka wadamadan markaad timaadid ama Yurub aad timaadid, waxaa lagu weydiinayaa bishaad dhalatay, maalintaad dhalatay, sanadkaad dhalatay. fadlan maskaxda ku hay, taasna ogow, ha hilmaamin. qodobka afraad asna waxa uu noqon doonaa, walaal haddii aad leedahay aabbo iyo hooyo, aad leedahay waalidkaaga sheego oo aniga wax dhahdaa aabe iyo hooyaan leeyahay, aabe iyo hooyana way ii nool yihiin. waa kuu muhiim, sababtoo ah dad badan oo qurbaha soo galay ama waqti hore soo galo oo kale ayaa iska jira oo yiri aabahii iyo hooyadii ma noola, camal sheeko noocaas oo kale. marka aabaha iyo hooyada wax adiga dhibaato ah oo ay ku geysan karaan oo tusaale kale ama dhinaca sharciga ama kala kulmi dawladda kala kulmay sidoo kale waxba noocaas oo kale ma jiraan. marka yaan lagugu qalqal gelin oo yaan lagu dhihin aniga aaba iyo hooyo ima noolo dheh si aad sharci u heshid ama waxba noocaas. qodobka shanaad waxa uu noqonayaa, fadlan haddii aad family leedahay ama xaas leedahay ama gabaray aad xaas aad tahay oo kale, fadlan sheego. siiba haddii aad ilmo leedihiin oo kale, sheegta. ilmihiina waa soo qaadan kartiin berito, ama xaas haddaad leedahay oo kale, xaaskaaga walaal waa soo qaadan kartaa iyo ilmahaaga. marka waxaa idiin muhiim ah badanaa inaad familadiina, xaaska ama sayga ama ilmahoo kale la sheegto. waa kuu muhiim, maskaxda ku hay. tusaale oo kale, wiil waxa laga yaabaa oo kale, haddii xataa aadan xaas lahayn oo kale, iska sheegaan ku dhihi lahaa aniga sidii ra'yigaygu tahay inaad xaas leedahay. sababtoo ah markaad sheegato xaas inaad leedahay oo kale, berito haddii ilaahay calaf kugu daro gabardee wadankii joogto ama Afrika joogto, si fudud ayaa ku keensanaysaa. laakiin mar haddii aad marka ugu horeysa aad dhahday xaas ma lihi oo dokumentiga ama waxyaabahaaga interviewgaaga waxaas ay sidaas ay lagugu qoro, oo kadib aad dhahday ana xaas aan guursaday, gabadhii aan guursadan waxay joogtaa Soomaaliya oo kale, process dheer ay noqonaysaa in lagu soo qaado. xogaa waxa laga yaabaa inuu ka fududahay inaad marka hore sheegatid inaad xaas leedahay. taasna way jirtaa, maskaxda ku hay. ka lixaad, haddii ay jiraan dad kula dhashay ama gabar kula dhalatay ama wiil kula dhashay ama dad aad qaraabo aad iskugu dhowdihiin oo kale oo wadanka aad iska dhiibtay degan oo kale, fadlan aniga waxaan ku dhihi lahaa sheego. sababtoo ah qofka wadanka kula degan ee qaraabada sokeeye aad tihiin oo kale, wax badan ayuu kaa saacidayaa dhinaca sharciga, dhinaca deganaanshaha, waxyaabo badan ayaa kugu fududaanaya. tusaale kale, wadamada Yurub ama wadanka adiga markaas aad timaadid oo kale, marka aad soo gashid oo kale, waxa laga yaabaa camp in lagu geeyo oo aad muddo sanadyo ama bilooyin badan aad ku jirtid oo dad kala duwan aad hal qol la seexatid, dhibaato badan aad ka martid. laakiin haddaad markaas oo kale qofkaas ay la dhashay oo kale aad dhahdid oo kale, waxa laga yaabaa isla markiina asaga lagu geeyo oo gurigaas aad asaga la degtid oo kale, oo halkaas aad sharcigaaga waxaaga aad ku sugatid, dee qof degan oo guri caadi degan oo kale aad tahay oo kale, oo sidaasna processkaaga waxaaga ay si fudud kugu dhamaadaan. waa sida badanaa loo badan yahan ka hadlaya. marka taas ayaa jirta. haddaba maskaxda ku hay inaad sheegatid haddii ay dad kula dhasheen oo kale oo ay magaaladaas degan yihiin ama qof aad qaraabo aad iskugu dhowdihiin oo kale, dowladda u sheeg. marka lagama yaabo inaad dhibaato iyo waxyaabaas kale kulantid. qodobka toddobaad, inaad interview aad iska diyaarisid ama interviewgaaga inaad sii diyaarsatid. sababtoo ah markaad qurbaha ama Yurub aad imaanaysid oo kale, wax yaroo interview ah maskaxda ku sii hayso oo macquul ah, berito marka haddii isla si kam ah lagu qabto oo kale ama si kam ah su'aalo kala duwan lagu weydiiyo kale, interviewgaaga adoo maskaxda ku hayso wixii lagu weydiiyo, maxaa sababta wadankaaga uga timid, haddii wadankaaga lagu celiyo maxaa kala kulmi kartaa kale, waxyaabaha noocaas oo kale iska diyaarso, sheego. marka dokumentigaas waxay kuu gala oo markaas lagu qoro ayaana hadhow laga yaabaa mar kale inay kugu soo noqdaan. marka maskaxda ku hay wax yar oo kooban oo macquul ah oo adigana aanan ugu tiro badnayn iska sheego. midda kale oo ku sii muhiimka ah waxay tahay, mar
haddii interview lagula yeelanayo dhibaato zaa'id ah ha sheegan. tusaale oo kale waxaa ka timid oo kale magaalada Muqdisho oo kale. magaalada Muqdisho xaaladeedu dee qof walba wuu ogyahay, kan ku wareysanaya xataa laftirkiisa wuu ogyahay xaaladda xilligaas ay magaalada ku sugan tahay. haddaad dhahdeen markaa magaalada Muqdisho wax saasaan ka dhacaya ama afgooyaan ka imid oo kale, dagaala hadda ka socdo oo kale, ilaahay kama dhige dee haddaad dhahdid ama sidaanay wax u yihiin waxyaabo ka badbadin ah macnaha haddaad sheegatid oo kale, waxaa laga yaabaa inay dhibaato kuu geysato. marka badanaa ha u badnaan inaad negative aad sheegtid, macnaha aad ka dhigtid wixii wax bumbuunin ah zaa'id aad ka dhigtid. marka wax macquula meelna ka dabac meelna isku adkee, waa wax adiga xoogaa isku dheelitir baan ka wadaa. marka runtii waa kuu muhiim 8daas qodob inaad iska ilaalisid. runtii waxaad ka nasiib badan tahay dad aanan horay 8dan qodob u ogeyn oo markay halkan yimaadeen inta 8dan qodob isla markii hore laga weydiiyo kale ama qayb kamid inta la weydiiyay isku qalday. siiba magaca, da'da, hooyada iyo aabaha, in family uu meeshan ku degan yahay, waa qodobada badanaa dadku qaldaan oo ay dhibaato kala kulmaan. wadamadan Yurub mar walba sharcigooda wuu isbedelaa sanadkii 2 mar ama 3 mar ayaa waxa laga yaabaa sharcigan shalay hadduu ahaa sidaan in berito la bedelo oo mid cusub meeshii la keeno. marka nidaamku wuu isbedelaa sanad walbaba intaasoo jeer ayuu isbedelayaa. marka xafiisku ma yaalo 10 sano sharcigii ahaa maanta ma yaalo, taasna waa inaad ogaataa. marka waa sababta aan kuu leeyahay si macquul ah oo dee qofkan caadiga Soomaaliga markuu ku dhageysanayo uu u fahmi karo, dee qofkan kale ku wareysanayana uu wax u fahmi karo kala uu sheeg. ha sameyn waxyaabo ka badbadin ah, waxyaabo ziyaada ah, waxyaabo xoogaa dhibaato ah, waxba noocaas ah adiga ku geysan kara, macnaha isku sameyn. marka dee sidaas ayaan kuu sheegayaa, qishkaasna waan ku siiyay. Yurub ku soo dhow ayaan ku leeyahay, dhulku waa dhulkaagii, fadlan haddaad Yurub timaadid ha isku wareeri. taasna waa macnaha talo aan ku siinayo. ha ku kadsoomin dhalaalka meeshan ka jira. fadlan reerkaagii oo laga yaabo aabaha iyo hooyada in qarashka aad ku soo baxda xataa lagu soo deemiyay oo lagaaga fadhiyo dee qarashkaas inaad gudid, ayagana berito aad wax ku tirtid, gacan qabatid oo kale, meel cidla ha uga dhaqaaqin. ogsoonow mar walba oo ilaahayna aad ku xirnaatid, dadkaagana aad xiriirisid, mar walbana aad noqoto qof furfuran, dadkiisa ka warqaba, ilaahay ku xiran, wax walba way ku fududaanayaan. laakiin taas bilcagsigeeda haddii aad samaysid oo qurbahan intaad soo gashid balwad aad baratid, aad sigaar baratid, aad shiishad baratid iyo waxyaabo kala duwan aad baratid, dee ogow wax walba ay kaa fogaanayaan. teeda kale mid kale ogow, maantay markaad meeshaan wadankan aad soo gashid sidaa tahay, dadka wadankan degan way ogyihiin adiga sidaa tahay. macnaha dowladda markaa ku qaabilaysa noloshaada, haddii aad balwad leedahay, haddii aad waxyaabo kale leedahay, way ogyihiin. berito haddii aad isbedeshid oo macnaha shalay adoo balwad aanan lahayn aad berito balwad bilowday, laftirkeed waa lagu ogaanaya. marka inkastoo dee wadankii ay ka jirto dee free uu qof walba yaa wuxuu raba samayn karo, waa wadanka sida ka jirta baa ka hadlaya. dee qof walba siduu raba ma samayn karo, laakiin sida ka jirtaan ka hadlaya. laakiin mar walba oo aad qof wanaagsan noqotidna waa la ogyahay, mar walba aad ka sii dartid oo sii xumaatidna waa la ogyahay. taas ogow, tii Allahna way dambaysaa. taasna waa mid aad adduunyada aad macnaha aad intaad joogtid aad arkaysid. intaan muuqaalo kale ku kulmi doono, subscribe-ka iyo like-ta waa ii muhiim, wixii comment ahna laftirkeeda waa muhiim. sidoo kale haddii aad doonaysid inaad su'aalo isoo weydiisid, waxaad igala soo xiriiri kartaa barta Instagram-ka aan ku leeyahay Abduqaadir/Duuli. wixii information ah, cod ha noqoto, qoraal ha noqoto, halkaas igu soo dir. insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan kuugu soo jawaabi doonaa. asxaabtayda badanaa su'aalaha halkaas iga soo weydiiyana waan filayaa in aan u soo jawaabay oo ay jawaab fiican oo macquul ah aan siiyo insha Allah. dee waa kaasaan isku ognahay. waxaan ku leeyahay Yurub ku soo dhawow gacmo furan.